بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso aad u xanuun badan oo uu ka qoray geeridii xaaskiisa wariye maxamed ciise maxamuud maracadde oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed kuwooda ugu haldoorsan ee hal abuurka wanaagsan leh. waa ay geeriyootay marwadiisa Eebbaha u raxmado, jannadii firdowsana ha ku abaalmariyo, balse waxa ay dunidan uga tagtay murugo aad u saameysay maxamed ciise maxamuud maracadde iyo qoyskii ay ka geeriyootay. run ahaantii waa sheeko qof walba oo damiir leh ama dareen bini'aadamnimo iyo mid muslimnimo uu ku jiro uu la damqanayo. maxamed ciise maxamuud maracadde oo ka hadlayay qisadii xanuunka badnayd ee uu la maray xaaskiisa ka hor geerida, waxa uu ku bilaabay qoraal sidan: isma aanan lahayn. mar walba geerida waa xaq, waana qasab inaan ku qanacnaa qadarta Alle, balse ismaanan lahayn. isma aanan lahayn adiga oo qof xaalad degdega ku jira wada ayaa gaarigaada gurmadka degdeg la gelin doonaa albaabka hore ee isbitaalka Digfaar. kala wareeg kuma hayna ICU, way naga buuxdaay. isma aanan lahayn adiga oo qof xaalad degdeg ah ku jira ayuu isbitaalka Yardameeli ku dhihi doonaa waa inaad qofkan soo saartaa raajada xabadka Jesk Scan, haddii kale kuma qaabili doono. isma aanan lahayn adigoo isbitaalka Jaziira ka soo helay raajadii lagu diray ayuu dhakhtar Turki ah inta jawaabta eega ku dhihi doonaa qofkan oxygen la'aanta hayso ha soo dejin, corona martini keliya ayuu ku dhihi doonaa. isma aanan lahayn isbitaalka Martini oo agab caafimaad oo tayo leh ay yaalaan ayaa ICU-da iyada oo xiran ugu tagi doontaa oo ruux uusan ku jirin, haddana shaqaalaha aysan awood u lahayn inay geliyaan ruux xaalad adag ku jira balse aan corona qabin. ruux aan corona qabin ma gelin karno ilaa wuu soo rogaal celinayaa. isma aanan lahayn cisbitaalka Soomaali Sudanes ayaa lagu dhihi doonaa ambalaaska aad gabadha ka dejisay yaysan kaa tegin, annaga kuma qaabili karnee, balse ugu dambeyn ay ku geeriyootay iyada oo sariirta qolka gurmadka degdega saaran. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. maxamed ciise maxamuud maracadde oo wata qoraalkiisa ayaa yidhi: isma aanan lahayn dalkeenna, gaar ahaan isbitaalada tirada badan ee Muqdisho ku yaala, meel walbana laga xayeysiiyo, ayaa laga weyn doonaa ICU waa qaybta la geliyay qofka xaaladda liidata ku jira kana tirsan isbitaalka. maxamed ciise oo wata qoraalkiisa ayaa yidhi: si gaara waxaan doonayaa inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha isbitaalka Martini, Umma iyo Jaziira oo tabar iyo awood yari ay u dayrisay, balse dadaal xoogan bixiyey. habeenkii xaaskayga xanuunka dareentay, balse Alle uu naga jeclaaday. sidaasi oo ay tahay, waxaan aaminsanahay in raadkeeda uu ka qornaa xaaskayga inay meelahaasi tagto dabadeedna ay geeriyooto. subxaan allah, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. maxamed ciise maxamuud maracadde oo wata hadalkiisa ayaa yidhi: mudanayaal iyo marwooyin, ruux kasta oo mas-uula ogaada maanta oo aad mas-uuliyadda haysaan inaad xusuusataan dadka aad mas-uulka ka tihiin inay dhibaato badan qabaan. ruux walba marka ay baahi qabato ayuu ogaadaa macaanida raashinka noocuu doono ha ahaadee, balse waxaan filayaa inay jiraan dad kale oo xanuuno kale dareemaya. waxaan leeyahay sida loo badiyo goobaha waxbarashada si lamid ah loo badiyo adeegyada caafimaadka. marka aad caafimaad qabto ayaad wax badan kartaa, marka aad wax baratana bulshada ayaad wax tari kartaa. alxamdulillaah, Allah ayaa mahad leh, ayuu ku soo gabagabeeyey hadalka maxamed ciise maxamuud maracadde. ma ogtahay malaayiin kale oo Soomaali ah oo sidan iyo si ka daran la kulma inay jiraan maalin kasta? mise ogtahay inaysan u hadli karin sidii uu u hadlay walaalkeen maxamed ciise maxamuud maracadde? ma mudan tahay inaad
ilaaliso mas-uul dadka aad mas-uulka ka tahay. waan ogahay waana aaminsanahay in qaladaadka noocan ah ay maalin walba dhacaan. maxamed ciise maxamuud. walaal dumaashi intaas ayuu wakhtigeeda ku ekaa. allah ha u raxmado adiga iyo qoyskii ay ka tagtayna ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo. laakiin dhammaanteen waa inaynu ku wada baraarugnaa in dhacdooyinkan ay si joogto ah u dhacaan maalin walba. waxaan maqlay aniga kiisas badan oo la xiriira arrimaha caafimaadka oo sidan iyo si ka daran ay u dhacday. waxa ay la soo xiriiray mid ka mid a dad qof laga soo saaray isbitaal oo looga soo saaray oo keliya $20 oo lagu yeeshay hal habeen sariirtii uu ku jiifanayay. ma qiyaasi karaysaa qof aanan haysanin xitaa wax uu cirbad ugu iibiyo qofkii ka xanuunsanaa haddii sidaasi loola dhaqmo? ugu dambayn waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadka haysta xarumaha dadka lagu daaweeyo. ogaada caafimaadka aad qabtaan maanta iyo awoodda aad maanta leedihiin maalin ayaydan lahaan doonin. ugu naxariista shaqadiinna iyo howlaha aad haysaan dadka tabarta daran iyo kuwa u baahan inaad caawisaan. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan ahay shaashaa. waxaan idin leeyahay walaalayaal aynu isu naxariisanno. allah ha inoo naxariistay.